bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah xildhibaan xidig oo Kismaayo kaga badbaaday isku day dil oo lagu qaarajin rabay dad la xiriirinayay inay hogaamiyaalka ahayeen al-shabaab oo lagu qabtay gobolka Baay xisbiga Xasan Sheekh oo dawladda farmaajo ku eedeeyay inay faragelin ku hayso maamulada Galmudug iyo Jubbaland Turkiga iyo ra'iisul wasaare Kheyre oo khilaaf uu ka dhax bilowday madaxweyne farmaajo oo lagu eedeeyay inuu sameeyay jabhado hubeysan oo qallaase ka sameeyay Somaliland iyo Faysal Cali Waraabo oo sheegay in sidii looga taqluusi lahaa madaxweyne farmaajo uu ka shaqeynayo wararka dibadda wararka TV caawa idin hayna waxa kamid ah madaxweyne Trump oo sharci gaar ah u adeegsanaya ogolaansho hub loogu iibinayo Sacuudi Carabiya daawadeel ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad kamid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka fadlan rukuma barteena si warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya caalamka aad u heshid adigoo subscribe dhahaya xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya isla markaana musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo kaga badbaaday isku day dil oo lagu qaarajin rabay kadib markii qarax mina lagu aasay meel u dhow gurigiisa wararka shabkada wararka TV ee ka heshay magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Jubbaland uu ka badbaaday isku day dil oo la rabay in lagu qaarajiyo kadib markii ciidamo u ahaa ilaalo xildhibaanku ay fashileen qarax miino oo lagu aasay meel u dhow gurigiisa ciidamada ilaalada u ah xildhibaan Xidig ayaa ku guuleystay in miinadaasi ay fashiliyaan taasoo la rabay in lagu qaarajiyo xildhibaan Xidig kadib markii meel dhowr tilaabo u jirta gurigiisa lagu aasay miinada xildhibaanka oo war ka soo saaray isku daygaasi la rabay in lagu qaarajiyo ayaa waxa uu sheegay in maamulka hadda talada haya ee Jubbaland uu ku howlan yahay sidii u dhibaateyn lahaa xubnaha musharaxiinta kuwaasoo dhibaatooyin xoog leh lagu hayo sidoo hadalka u dhigay waxaana shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka uu ka codsaday in ilgaar ay ku eegaan arrimaha ka taagan magaalada Kismaayo sidoo hadalka u dhigay xildhibaan Xidig oo maanta ka badbaaday isku day dil oo la rabay in lagu qaarajiyo waxaana xildhibaanku uu sheegay in isku daygaasi laga soo abaabulay sidoo hadalka u dhigay madaxtooyada magaalada Kismaayo shakhsiyaad la xiriirinaya inay hogaamiyaal sare ka yihiin ururka al-shabaab oo lagu qabtay degmada Bardaale ee gobolka Baay maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab kadib baaritaano ay ka sameeyeen degmada sida hadalka ay u dhigeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in baaritaan ay ka sameeyeen degmada iyo deegaano ku dhow ay ku soo qabteen 3 xubnood oo sida ay hadalka u dhigeen looga shakisan yahay inay hogaamiyaal ka yihiin ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Xuseen Isaaq oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in xubnaha la soo qabtay oo gaaraya ilaa 3 loo wareejin doono magaalada Baydhabo si halkaasi baaritaan lagu sameeyo maxkamadna lagu soo saaro gudoomiyuhu waxa uu sheegay in al-shabaab iyagoo dhuumaaleysi ah ay weeraro joogto ah ku qaadaan ciidamada ammaanka kuwaas oo uu sheegay in iyagoo la baaxsanaya ay ka baxeen magaalada sidoo hadalka u dhigay wuxuuna sheegay in ciidamada ammaanka ay meel kasta kaga daba tagayaan ururka al-shabaab gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay inay aad u wanaagsan tahay xaaladda wadada isku xirta Bardaale iyo Baydhabo halkaas oo al-shabaab inta badan ay weerar ka geystaan waxaana maalmihii u dambeeyay al-shabaab culays ay saareen degmada Bardaale taa oo geesaha ay ka hareerayeen si cunqabateyn u saaraan xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ee hogaamiyaha uu ka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay faragelin ku hayso maamulada Galmudug iyo Jubbaland xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD ayaa soo bandhigay mowqifkiisa ku aadan xaaladda dawlad goboleedka Galmudug iyo doorashooyinka Jubbaland iyo khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada baaq uu soo saaray xisbiga ayaa lagu sheegay in xisbigu uu saluugsan yahay doorka taban ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku leedahay xaaladda ka taagan Galmudug sidoo kale xisbiga ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay ay ku haysay maamulkaasi kala qaybin isku dir cunaqabateyn iyo beegsi joogto ah oo ay ku magac dilayaan madaxda maamulka iyo ishoristaaga mashaariicda horumarineed ee dawlad goboleedka Galmudug loogu talagalay xisbiga ayaa ugu baaqay dawladda federaalka inay joojiso faragelinta ay ku hayso maamulka Galmudug iyo maamulka Jubbaland oo dhawaan la filayo in doorasho ay ka dhacdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo saraakiil military oo dawladda Turkiga u jooga Muqdisho ayaa khilaaf uu soo kala dhaxgalay waxa khilaaf xoog leh uu ka dhex jira dawladda Soomaaliya iyo taliska tababarada dawladda Turkiga ee saldhigiisu uu yahay magaalada Muqdisho khilaafkaas oo dibadda hadda u soo shacbaxay khilaafka ayaa u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre
iyo sarkaalka Turkiga u qaabilsan arrimaha tababarada iyo ciidamada isla markaana sarkaalka ugu sareeya xarunta tababarada ee dawladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho. shabkadda wararka TV ayaa ogaatay in khilaafku uu ka dhashay ciidamada dawladda Turkiga oo ay tababartay oo taliye looga dhigay sarkaal ay wataan Saadiq John iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxaana laga bedelay taliyihii u soo magacaawday dawladda Turkiga oo ciidankaasi tababartay. ciidamadan oo howlgalka gaarka ah ka fuliyay magaalada Muqdisho ayaa lagu magacaabaa Haramcad, waxaana taliye looga dhigay sarkaal ka mid ahaa ciidamada ay tababartay dawladda Turkiga, halka ku xigeen looga dhigay Farxan Qaroole oo ka mid ah saraakiisha ka horshaqeysa Saadiq John iyo ra'iisul wasaare Khayre. sidoo kale waxaa taliye ku xigeenka labaad looga dhigay sarkaal magaciisa lagu soo koobay Cornel Fanax oo ka tirsan booliiska Soomaaliya, horena taliye uga ahaa degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, ka oo markii hore ka soo goostay ururka Al-Shabaab. Saadiq John iyo labada taliye ee aan kor ku soo xusnay ayaa hoos u dhigay 70% awoodii taliyaha ay dawladda Turkiga u soo magacaawday ciidamada Haramcad ee howlgalka gaarka ah ka fuliya magaalada Muqdisho, waana sababta keentay khilaafka. shabkadda wararka TV ayaa ogaatay in sarkaalka dawladda Turkiga u magacaawday hogaaminta ciidamada uu Turkigu tababaray ee Haramcad uu warbixin ku siiyay taliyihiisa ka sareeya in uusan waxba kala socon dhaqdhaqaaqa ciidamada oo ay maamushaan Farxan Qaroole iyo Cornel Fanax oo amar ka helaya taliye Saadiq John. sidoo kale sarkaalkan ayaa taliyihiisa warbixin ku siiyay in 4 howlgal oo aan laga talagelin waxna uusan ka ogeyn ay fuliyeen ciidamadan. arrintaasi ayaana sababtay muran u dhaxeeya isaga iyo labadiisa ku xigeen. dawladda Turkiga ayaa markaasi kadib xiriir la sameysay Saadiq John oo ah taliyaha booliiska gobolka Banaadir, waxayna ka weysay warbixintii ay ka dalbatay. Turkiga ayaa dacwadaasi gaarsiiyay taliyaha booliiska Soomaaliya oo markii dambe ka dalbaday inay si toos ah ula xiriiraan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kadib markii uu cadeeyay inuusan waxba ka gelin arrintaasi. dawladda Turkiga ayaa ugu dambeyn joojisay ciidamo gaaraya 200 oo askari oo lagu geeyay inay ka mid noqdaan ciidamo cusub oo ay tababar siin doonaan macallimiinta Turkiga ee arrimaha ciidamada. soo celinta ciidamada ayaa waxa sabab u ah kadib markii xafiiska ra'iisul wasaaraha uu ka jawaabi waayay cabashada Turkiga ee arrimaha ciidamada Haramcad. Turkiga ciidamada uu tababaro wali isaga ayaa gacanta ku haya, waxaana mas'uuliyadda taliyaha loo dhiibay ka mid ah in uu mas'uul ka noqdo qatar kasta oo ay wajahayaan ciidamada loo dhiibay. haddii askari uu ku dhinto si qaldan ama istiraatiijiyad xumo, waxa uu wajahayaa ciqaab ciidan iyo ciqaabo kale oo aan la shaacin, waana sababta keentay in sarkaalka Turkiga uu magacaaban ciidamada Haramcad ee awoodiisa hoos loo dhigay uu cabasho u gudbiyo taliska ka sareeya ahna madaxda tababarka ciidamada Soomaaliya ee dawladda Turkiga. Somaliland ayaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeysay inuu sameeyay jamhado hubeysan oo qalalaase ka sameeya deegaanada gacanta uu ku hayo maamulka Somaliland. wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland Maxamed Axmed Kaahin oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu sameeyay jamhado hubeysan oo qalalaase ka sameeya deegaanada Somaliland. wasiir Kaahin ayaa sheegay in jabhadahan loogu talagalay in lagula dagaalamo Somaliland isla markaana ay u gudbiyaan beesha caalamka dacwad ka dhan ah sida uu hadalka u dhigay. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in jamhadaha hubeysan ee madaxweyne Farmaajo uu sameeyay Somaliland ay hogaaminayaan rag ay Somaliland si wanaagsan u taqaan sida uu hadalka u dhigay, kuwaasoo haatan doonayo inay burburiyaan Somaliland. ugu dambeyntii waxa wasiirku uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu dhibaato ku hayo deegaanada maamulka Somaliland isla markaana dacwo ka dhan ah ay u gudbiyaan beesha caalamka sida uu hadalka u dhigay. hadalka wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli jabhad hubeysan ay ka dilaacday gobolka Sanaag ee maamulka Somaliland, kuwaasoo fadhigoodu uu yahay magaalada Qardha isla markaana la dagaalamaya ciidamada Somaliland. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in uu ka shaqeynayo sidii looga taqluusi lahaa madaxweyne Farmaajo. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Somaliland Injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in kulamo uu kula qaatay magaalada Nairobi siyaasiyiinta Soomaaliyeed uu ujeedka laga lahaa sidii looga taqluusi lahaa madaxweyne Farmaajo. waxa uu sheegay inuu la kulmay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur isla markaana waxa uu sheegay inay iska kaashan doonaan sidii meesha looga saari lahaa madaxweyne Farmaajo sida uu hadalka u dhigay Injineer Faysal Cali Waraabe. Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu yiri cadawgaaga cadawgiisa waa saaxiibka, sida Farmaajo looga taqluusi lahaa ayaan ka shaqeynaynaa anaga iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, cid kastana waa u kaashanaynaa ayaa uu yiri gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe.
faysal cali waraabe waxa uu sheegay inay jiraan qalqal amni oo dowladda Soomaaliya ay ku hayso deegaanada maamulka Somaliland sida daraadeedna ay dadaal ku bixin doonaan dhankooda in ay la kulmaan dadka ka soo horjeeda hogaamiyaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si qalqal siyaasadeed loo geliyo kursigiisa ayaa uu yiri gudoomiye faysal cali waraabe. wararka dibadda wararka TV caawa idin hayna waxa kamida madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa sharci gaar ah u adeegsanaya ogolaansho hub looga iibinayo wadanka Sacuudi Carabiya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fasaxay in hub qiimihiisu uu yahay malaayiin dollar laga iibiyo wadanka Sacuudi Carabiya wuxuuna ku sababayay qatar kaga imaan karta wadanka xurgufta siyaasadeed ee kala dhaxaysa Iiraan. madaxweyne Trump waxa uu adeegsanayaa sharci si dhif ah loo adeegsado oo heer federaal ah si uu u meelmariyo heshiiska hubka looga iibinayo wadanka Sacuudi Carabiya oo qiimihiisu uu yahay 8 bilyan oo dollar oo sida caadiga ah ay tahay inuu ansixiyo Koongareeska Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilaabadan u qaaday si uu cadeeyo in xiisadda Iiraan iyo Sacuudiga dhex taalo ay u noqoto arrin xal ah oo xaalad degdeg ah qarankiisa la soo gudboonaatay. talaabada Trump uu qaaday waxa ay ka careysiisay dad badan oo qaba in hubkaas loo adeegsan doono dadka rayidka. hubkaas ayaa sidoo kale la soo warinayaa in laga iibinayo wadamada Imaaraadka Carabta iyo Urdun sida qaar kamid ah warbaahinta wadanka Mareykanka ay sheegtay. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen wararka TV caawa naga inta